active voice, active and passive voice. waxaan bilaabaynaa waa kii afraad oo active voice ah. waxaa leedahay past continuous tense. past continuous tense waa goor tagta ee socota. formula of passive voice lagu soo saaro waa object dhibane plus logay was, where, plus been, plus past participle of the verb, plus by, plus subject. Example, waxaan qaadanayaa tusaale active voice ah. Number 1 wuxuu yidhi ardaygan I was learning English. I was learning waxaan baranayay English. Englishka ayaan baranayay. Kelimadaas waa active voice. You were reading waxaad akhrisanaysay English grammar. Naxwaha Englishka ayaad akhrisanaysay. He was preparing waxa uu diyaarinayay. He was preparing waxa uu diyaarinayay the final exam. imtixaankii kama dambaysta ah ayuu diyaarinayay. kelimadaas oo dhan jumlooyinkaas oo dhan waa active voice. You were eating waxaad cunaysay. You were eating waxaad cunaysay a popcorn dango. Popcorn English waxaa leedahay daangada. She was cooking waxa ay karinaysay iyada a rice breeze. intaasoo dhan waa ama sentenceskaas oo dhan oo shantaas tusaalaha ah waa active voice. hadda waxaan gudgalaynaa asoo ah passive voice. tusaalooyinkaas soo marin waxaa ahayn active voice. hadda waxaan gudgalaynaa passive voice ayaan ka dhigaynaa. English was being learnt by me. waa kaa English was being learnt waxa bartay by me. aniga ayaa bartay English. English grammar naxwaha grammarka ama naxwaha Englishka ah was being read waxa akhriyay by you. adiga ayaa akhrinaysay. The final exam imtixaankii gabagabada ah was being prepared waxa diyaariyay by him. asaga ayaa soo diyaariyay. A popcorn daangada was being eaten waxa cunay by you. adiga ayaa cunayay. A popcorn daangada was being eaten waxa cunayay by you. adiga. A rice briskana was being cooked waxa kariyay by her. iyad ayaa karisay. intaas nagu dhamaatay passive voice keeni ahaa. waxaan gudgalaynaa hadda qaybaha kale asagoo ah active and passive voice with question. tusaale was I learning English. Was I learning English. ardaygan wuxuu yidhi was I learning English. ani ma baranayay Englishiga. Were you reading ma akhrisanaysay English grammar. naxwaha Englishka maad akhrisanaysay. Was he eating asaga ma cunayay food cunto. Was she choosing me ma i dooratay iyada. Was she choosing me iyada ma i dooratay. Passive voice with question. marka waxaan u gudgalaynaa asagoo ah passive voice with question oo su'aal wata. Was Englishka being learnt by me. ma baranayay aniga Englishka ma baranayay. Was Englishiga being learnt ma baranayay by me aniga. waa question oo passive ah. Was English grammar naxwa English grammarka ah being read ma akhrisanayay by you. adi miyaa akhrisanaysa. Was English grammarka naxwa Englishka being read ma akhrisanaysay by you. adiga miyaa akhrisanaysa. Was food cuntadii being eaten ma cunayay by him. asaga ma cunayay cuntadii. Was food cuntadii being eaten ma cunayay by him. asaga waa question oo passive ah. Was I being chosen by her. ma doortay aniga. Was I being chosen by her. ani ma doortay.